بسم الله الرحمن الرحيم. أركاله قلده warbaahinta waa salaamantiin. Kilibkan aan ka hadlayno wuxuu yahay hawl ku saabsan deegaan laga guuray oo ciidanka asluubta hadda ka hor markii hore aan joogay meeshaan godka oo dekada ku dhax taalo oo basiibada ah dekada waxaan ugu amray dawladda in aan ka guurno meesha ayada banayno si dekada loogu fidiyo loogu ballaariyo dhulay ayadu ka mid tahay annaga waxay naga qusay waa ka rarnay meeshii dekada iyo wasaaradda dekada anigoo la kaashanay waa rarnay meel baan dejinay dadkii asiga ahaa dadka suuqa iskama degi karaan meel baan dejinay nin kasta oo inta ka rarnay dhul baan siinay meeshina waa banaynay nimankii baan ku wareejinay tiyo sidaasaan aniga ka tagay ciidanka asluubta ka bacdi madaxdii markaas joogtay way soo celiyeen dadkii meeshii ay ku celiyeen haddana doodeeda taagan naga raraa liilay rarku waa gar war shala lagu raray maxaad u soo noqotay oo dhul lagu siiyo lagu dajiyay sababta u soo noqotay maxay oo u ogolaatay haddana meeshii deg haddaad ogolaatay haddana waad guuraysaa hadda amar waxaan ku qabnaa in laga guuro la baneeyo cid kasta meeshaas degtay oo shalayna inta la raray soo noqotay adeero alaabtaada ka jafjafo oo guur meeshii shalay lagu geeyay tag gurigaagii deg haddaad meelahan kale oo kaamka guri ku leedahayna gurigaan deg kaamka kilomitir 7 haddaad guri kale ku leedahayna deg banee meesha kaaliyaha taliyaha waxaa lagu amrayaa inuu guddi dhaqsiya u magacaabo la soo calaameeyo dhulka ayada la jabiyo waxaana la kaashan doonaa wasaaradda dekada wabillahi tawfiiq amarkana saasuu ku fuli doonaa annagana waa fulinayna annagana kuwa aan siinay saasay ku fulin doonaan